waxaa maanta xaflad weyn lagu qabtay cusbitaalka guud ee magaalada Baran. xafladan ayaa waxay ku saabsanay furitaan waar cusub oo loogu talagalay caruurta. waarkan caruurta ayaa ah mid baaxadiisu weyn tahay, waxaana waarkan iska kaashaday shacabweynaha reer Maakhir guud iyo dibad. waxaana waarkan dhismihiisu fuliyay jaaliyadaha dibadda ee reer Maakhir, waxaana kamid ahaa jaaliyadahaas Al-Nasr, Sahal Community Organization iyo jaaliyada North America. haddaba ururka Sahal Community Organization oo ka jira cariga Ingiriiska ayaa wuxuu dhismihii waarkan caruurta ka qaatay qaybtii ugu badnayd, isagoo gashay lacag dhan $10,000 kuna dhammaystiray. xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida cuqaasha, guurtida, maamulka degmada, maamulka gobolka, bahda saxaafadda, bahda waxbarashada, haweenka iyo xubnihii Sahal Community Organization. haddaba xafladan ayaa waxaa markii ugu horeysay furay guurti Maxamuud Maxamed Shire oo ka warramay taariikhda cusbitaalka uu soo maray. intaa kadib ayaa waxaa mikrofoonka lagu soo weeciyay doctorka cusbitaalka guud ee Baran, Dr. Ciise Axmed Taajir, wuxuuna ka warramay baahida loo qabay waarkan ciyaalka. wuxuuna yiri marka waa qayb aad iyo aad ugu baahnaa. haddaynu ka soo qaadano tusaale ahaan sanadkii hore ciyaal badan baa halkan la keenay. waxaa dhibaato weyn nooga timi meelihii aanu geyn lahayn, meelihii aanu dhigi lahayn caruurtaas oo aan xataa aan sameynay inaanu xaafadaha ama magaalada aan dib uga celino, oo farshaan gaara aan usoo iibino, inaanu meel kasta oo isbitaalku ka bannaan yahay aan u dhigno. maanta alxamdulilah waxaa jira waarkan baa la sameeyey, muddo yar gudaheed baa lagu sameeyey. waxaa hadda gaarka ah wanaagga iyo xushmada iyo wax walba ku dheehan yihiin iskale community-ga dibadda jooga, jaaliyadda iyo kolba dadkii ugu horeeyey ee bilaabay maxaan la yidhahdaa ku bilaabay voluntary-ga dhowrkii casho ugu horeeyey magaalada ka bilaabay. cusbitaalkan waxyaa meelo badan oo gobolka sane ka mida ayuu aad iyo aad wax ula qabtaa. hadday tuulooyin tahay, hadday tahay deegaanada ku dhow Baran, ilaa ceelgaabo, ilaa yube, ilaa xingalool, ilaa dhahal, ilaa laasqoray, ilaa adigu waxa weeyaan sanaag inta ay. sidoo kale waxaa madasha ka hadlay qurba joogta Sahal Community Organization oo kala ahaa Caydaruus Axmed Faarax iyo Ibraahim Maxamed Guuleed, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaan malaynayaa 17 hadaan wax qaldin ayaa guud ahaan lacagta ku baxda la sheegay. marka laga reebo voluntary-ga iyo ururada bulshada iyo dadkii gacantooda ka geystay aad u mahadsan. 2000 waxay ahayd xilligii bilowga, 2000 waxay ahayd xilligii bilowga oo ahaa ayaa lagu daray. waliba maamulka ama trustees-ka Sahal Community Organization ayaa isagu xil gaar ah intuu sameeyay. aniga Xaaji Ibraahim hadda ka joogna iyagoo aan sanduuqa ka bixin ay iskooda soo xilqaameen oo $2,000 soo daray si loo wado mashruuca. marxaladii labaad anagu waxaan gelinay $8,000 oo lagu dhammaystiray qaybaha hadda arkaysaan waarkan weyn. dhulka neeraska ama staff-ka ay ku shaqeynayaan, 2 mas'uuliyad oo gudaha ku jira. asabadii biyuhu way ku jiraan, laakiin xagga biyaha cusbaalka qaybihiisa kala mid yahay biyo gelin buu u baahan yahay, waana baahida weyn. laydku waa ku jira. ururkanina wuxuu ka mid yahay ururada u shaqeynaya deegaanka Baran kaliya ka shaqeyn maayo, wuxuu ka shaqeynayaa meel walba oo deegaanka ka mid ah, laakiin waxaa la siinayaa baahidu maanta meesha ay tahay ayaa la siinayaa. wuxuu tegayaa dhahar, wuxuu tegayaa xingalool, wuxuu tegayaa laasqoray, wuxuu tegayaa yube, wuxuu tegayaa meelo badan. hal mas'uul oo dhisan ha noqotee waxaa qorshihiisu yahay in wax muujiyo. gabagabeynayaa waxaan fariin gaar ah siinayaa xubnihii ururka Sahal Community ee lacagtaa bixiyey inay maanta arkaan lacagtii ay la baxeen, in ay maanta waxaan aan aragno ay qiimaha leh ay qabatay, inay ogaadaan. waxaa la yidhi qofku marka uu dhinto idaa maata ibnu aadam inqadaca camalu, camalkiis waa go'a lannahu waa ka tegay adduunyadii. laakiin 3 arrimood unbaa intuu dhintay ka bacdi u socdaa. waxaa ka mid ah sadaqatu jaariya, xadiiskii sadaqad jaariya oo socota aan qoyn, ceel la qoday, masaajid la dhisay, waar la sameeyey. waana ku mahadsan yihiin dadkii xoogooda iyo xoolahooda geliyey oo korontaa ku qabteen 100% ugu mahad celinayna dhammaan inaga oo dhan. annagu waxaanu soo gaarnay oo aan wax ku qabanay wixii dalka aan laga qaban karay, laga heli karay oo inaan inagu lahayn. ciidda iyo dhagaxa iyo biyaha inaga aan lahayn,
dhagaxii iyo ciiddii iyo biyihii heerkaa dhismuu joogo baa lagu gaadhsiiyey oo rag baa lacag la-aan dad rag iyo dumar lacag la-aan iyagu dee waa lacag laakiin aan lacag lagu qaadan bay ku gaadhsiiyeen waxaanu anagu keennay oo aanu ku soo darnay wixii dalka aynaan ku samaysan karayn oo ay ka mid tahay jiingada iyo qoriga iyo biyaha lagelintooda iyo albaabada iyo waxyaabaha caynkaas laakiin wixii dalku lahaa dadkii geliyey baa hadda ballaaran iska leh cusbitaalka horta halkan waxaan ka yar sheegi lahaa in yar oo aan ku darayo waarkan waxaa iyana lacag geliyey $3,000 qolada waqooyiga America waa geliyeen $3,000 bay geliyeen qolada ururka Al-Nasr $2,000 bay geliyeen lacagtaa $5,000 bayana waarka kullu bidhay oo la geliyey insha Allah waxaa kaloo yar xusid mudan gabadha isbitaalku uu ku furan yahay awgeed oo ayna halka ka xusin runtii waa ka xumahay oo ah gabadha leedahay Caasha Traawil oo isbitaalku markuu dib u xumay xafladan ayaa waxaa ka hadlay mas'uuliyiin tiro badan waxaana ka mid ahaa dhanka dhaqanka caaqil maxamuud faarax ducaale caaqil cumar aw saciid nabadoon maxamuud xasan maxamuud oo iyagu dhammaantood duco iyo hambalyo u diray dadkii fuliyey hawsha tan sidoo kale Faadma Axmed Dahar oo ka tirsan ururka Al-Nasr ayaa madasha ka hadashay iyo maayirka magaalada Baran Cabdirasaaq Axmed Ciise isku soo wada duubo cusbitaalka guud ee Baran ayaa waxaa ka hawlgala laba dhakhtar oo kala ah Dr. Ciise Axmed Taajir iyo Dr. Amaal Ibrahim Dubeys waxaana cusbitaalku wax weyn ka qabtay baahida caafimaadka ee gobolka Sanaag Cabdirasaaq Ali Balbal telefishinka caalamiga Somali Channel magaalada Baran